ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu ku wareysan doono rugcadaa saxaafadeed oo Soomaalidu si weyn ay u taqaano muddo 20 sano ka badan oo soo shaqeynayay idaacadda BBC da Soomaalida dhanka kalena radio Muqdisho dadka shaqaalaha ka ahaa kamid ahaa wareysigan ayaanu ku eegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo taariikh nololeedkiisa anagoo marnaba cadaalad u sameyn karin haddii Ilaahay yiraahdo inaanu inta aanu isleenahay waqti weydin masaabaxaya aanu soo koobno laga yaabaa inaad isleedihiin waa kuma wariyahaas caawa barnaamijka martida ku ah waa aadan nuux dhuule oo aad si fiican u taqaanaan waa ku soo dhaweynayaa aadan sharaf iyo karaam inoo tahay inaad stuudiyaha nagu soo booqatid in muddo ayuu barnaamijkan ku daydayay soo dhawow waa maasantay aad iyo aad waa maasantay waxaan rabaa marka hore haddii Ilaahay yiraahdo in aan wax ka weydiiyo bal marka hore barbaarintaadii dhalinyarada waagad ahayd meeshaad ku dhalatay ku soo barbaartay soo dhawow waa maasantay waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Oodweyne waqooyiga ku taala ama Somaliland waxa u dhaxaysa hadaan eego Burco iyo Hargeysa laakiin markii aan ku dhashay ee laga kaxeeyay inaan laga garan maayo inaan ku dhashay sidoo garanaya intii ka dambeysayna waxaan waa 3 jeer baan arkay mar habeen baan u hoyday marna saacad iyo bar ilaa 2 saacadood baan joogay marna baabuur baan ku dhex maray waxaan aduu markii dambe ku koray oo aan joogay bilowgii hore magaalo la yiraahdo Dabagorayaale waxa ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia halkaasaan malcamada ka bilaabay halkaas ay iskuulka laga qoray iskuulka aan garanaya maalintii oo iskuul ma jirin markaa waxa la fidinayay waxbarashadan falay markaas oo dhulka xuduudda soodintaas ay iskuul laga furayay la tahay marka dib u qiyaasay marka ay goor fiida oo aad sii dhacayso iyadoo la diray antain laba gambo oo gas faynuska lagu shido ayaa dukaankii markaan ka soo qaaday baa inaan kuray teenager oo kuroon jira loo oran jiray ayaa yiri war ma yadogan malcamadaadii iskuul laga qorayo dadana gaasti baan tuuray oo aan cararay safkii baan galay baahiba u qabtay waxbarashada haa iskuulka waxaan arki jiray marka ay caruur iskuulada ku jirto fasax ku timaaday xaynkaas daxiisa waan qabaan doonay marka aan cararay ko quraan baa la akhriyay marka quraanka baa la qoray nin Maxamed Urdox baan manay inuu magaciisa markii dambe aan ogaaday oo marka weynadaan gartay deyn moogtay Maxamed Urdox educational officer buha waxaan bartay markii dambe aanay walaaliyoon saxafi ah markii dambe bartay bari dambe aan bartay neewa kala walaalahayna wuxuu ahaa wargeys ka soo bixi jiray Arab ku soo bixi jiray waqtigii hore oo ka soo bixi jiray Muqdisho iyo Maxamed Urdox adigu ninkaas aan qoray halkaas aan deetan iskuul ka galay markaan ku jiray sanadkii saddexaad ayaa wax weyn isbedelay waxa dhacay dagaalkii 1964 dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia dugsigaasi waxaan ahayn hadaan yareeyo dhowr iyo 10 sanadood ardaydii ugu horeysay uguna dambeysay waa dugsigii iyo magaaladii barkeed wixii baa baaba'ay dagaal baa ka dhacay aan xasuusnaa waan joogay marka dagaal ku dhacay elementary-gan ku jiray sanadka saddexaad baan ku jiray goor galab ah oo marka shanta oo kale marka warka la sheego idaacadaha oo kale ayaa dadkana waa laga saaray magaalada caruurta iyo dumarka iyo dhamaatay wixii ka baxbaa la yiri ayuu baa weerar soo qaadeen qoladii Ethiopia-ku xaqiiqada marka dadku ciidamada Soomaaliyeed oo joogay waqtigaas haddaan qiyaaso waxaan ilaa tobanaya askari oo booliis iyo ilaalis u jira kaliya حمش مولين دغالكو wuxuu ka socdaa hadda moogta meel ka fogay wajaalayo ina guxayo adigu markii ay soo dhoodhowdahay baa aabahay iyo ordos ka baxa meesha waxa muuqatay inay dagaal ku soo doonayaan qaadan xiradoodii bay ka baxeen adigu ay soo duuleen oo maantaas anigu halis baan galay أنا oo igu qabsadeen meeshan ka saanay aragtay adigu habeenkii waqti dambe oo ay noqdeen ayaan ka baxay sidaan ka baxayna waxay dadka markay soo dhaafeen maan moodayn aqsoor baan dib u galay
oo dayaaradii markii waxaan arkay deeqa ayaan ka baqay soo dhawaatay dib baan uga gurigii waqti marka waxoogay dagaalka socday dhinaca qurub wax ka soo baxayeen ayaa aqal Soomaali waxaa jira qayb la yiraahdo alool oo waa marooyin saa la isku doo intaasaa la baneeyaa oo aan dhulka gaadhayn waxaan maleeyaa inay qiyaasti tahay inaanu aboorka iyo wax kale aan halkii baan ka eegay waxaan arkay maadaama aqal Soomaali dhexdiisa ku jiro xafadii aqal Soomaali hooyadu xagga ka soo gubayaan dabba bay qaadsiinayaan ilaa ay soo gaadheen kii dhawaa xarana dhasay xameed xaro xoolo lagu xariixay kaas marka ere afxamaarkan ka garnayo oday gardheer oo habashii ayaa dhig kabriid alle marka waxaan igu soo dhacday kan uu gubaya ka iga soo horjeeda igu dhow xaga bariga iga xadeed soo kabriid alle waa kabriid ma haysaa way ku iyagii buu weydiinayay ayuu weydiinaya soo by that time waa bay noqonayaan waqti yara madoobaaday ayuu haddana mar dambe maqlay qof le waa guryaha ka duwa rasaasta oo intaasoo ay dad ku jiraan adigu meeshan soo baxo qabteedu waxay maqlo markaas uu yiri markii waa iyagu yiri waxaan sidee markaa madax xabad ku ridi nafwi isagoo dhis xabad xagga u ridaya ma waa aniga ma wiil baa ka bax meesha asaasan ka baxay isaga codka badbaadiyo halkaa markaa iskuulka agmar oo iskuulkaygii moogtay markaa iskuulkii ilaa intaan secondary ka baxay shaqada la qoray groupkii ugu dambeeyay ugu horeeyaan ahayn mooji waqtiyadii dambe magaalada dhinaca dhan baa la baabiyay iskuulkii halka soo baxday xalan iyo xamar baa qabat aniga 3 years ayaa xalana markii dambe secondary ka soo xalan tagnay xalana markii aan tagnay deetana ana la qaybiyay chance wanaagsan bay marka la eego dabariga hore marka ardayda ay ka soo baxaan secondaryada kale dhibaatay u hayd ninkii aadaan Muqdisho ma artay cid ku lahayn laakiin dawladda kacanka hagadan waxaan aaminsanahay inay wax wanaagsan waqtigaas noo samaysay oo cid kasta oo imtixaankii ka gudubtay xamarka leeyahay la yiri waxa nala geliyay xalana nala geliyay within 10 days meel 10 maalmood gudahood markii dambana shaqada qaranka loo diray macallin jaamac baan ka dhigi jiray dugsiga loo jeeday ka soo horjeed maxallin ku kala xulanayay ma jirtay in dadka la cunsuriyeenay ama la qabyaaladeen ma waxaan lagu soo saaray waxa ku saleysanayd inaantay horta wixii ku jiray markaad eegto jaamac ka soo baxay secondary waqtigaasi Soomaaliya oo dhan meesha la soo keenay kun kama badnaan waxyar kun kama badnaan waxaan 9 horimood ama 10 horimood ayaan ahay marka imka maanta dugsiga wada waxa ka soo diray kumanka ayaa ka soo diray marka waxaan loo kala xidhmay jiray markii waan kala horeyno inta waqtigaan bilaabayna shaqada qaranka oo qolooyinkay ka soo baxay iskuulada Ingiriiska wax lagu bariyay af Carabiga ayaa la yiraahdo horeyda ku sii gala saddex bilood bay qoladii kale naga dambeeyeen marka dugsiga macallin jaamac ayaan ka dhigi jiray waqtigaas waagartay marka waxa la ku soo xushay aqoontiini iyo dadaalkiini waagaas nidaamkii jiray ma ahayn mid wax kala soocayo wax kala xumeynaya dareenkiina suu ah I think aan markaan ka dubo eego waxay fursad wanaagsan oo la helay waayo barigii ka horeysay intii naga horeysay hadii ardaygu isaga shaqada deeganay laakiin waa full employment oo kale waxa qof walba nidaam marka qof walba macallin noqolay sanadkii markaan soo dhameynay qof walba meel baa lagu qoray sidaas aan deetana wasaaradda warfaafinta groupkii la geeyay ayaan ka mid ahaa waa gartay wasaaradda warfaafinta ma waxa aad u xiiseynaysaa warbaahinta ee waagii hore mise nasiib baa ku geeyay maxaa kugu dhaliyay inaad halka waxaan u nasiib u baahday oo lagu qoray markii lagu qorayna inaantay waxa jirtay 8 meelahaas aan ahay intii warfaafinta loo qoray ama madbacada tagto ama filimada ha tageen ama wakaalada wararka ha tageen marka 8 kayagii ayaa cod tijaabo ah laga qaaday marka 10 baan idaacadu la baxday yaa kamid ahaa 10kaas 10ka waxa kamid ahaa Allah yarhamu awke Allah yarhamu Abdi Idris Allah yarhamu Yunis Allah yarhamu Muhammad Aadan Xisi Tarra Dalmar aniga iyo labano na jaamac loo oran jiray min Fayro labada radio Hargeysa la geeyay iyo laba inoo kale oo iyagana midna loo qaatay library-ga oo Xuseen Qoryo loo oran jiray iyo kale Mas'uud oo Jaaf Carabiga loo qaatay tobankiina saayideen tobankaasaan hayn laakiin aniga marka Soomaaliga leeguma qorin hay af Ingiriisiga la diray waa gartay
adana mala akhri ande akhriyay un buu isleeyahay Xog mala waa akhri karaya waxaan u tagay deetana qaybtii afafka qalaad baan tagay qaybtii afafka qalaad markaan tagay waxaan ugu tagay qaybtii ingiriiska inaan kaliya jooga inaan qora qof qora buu ahaa Axmed Ducaale ayaa loo jeeday reer Djibouti baan falay markaa waxaan falay walaa mar waxa lagu yiri madaxda xagga tareemada ay xasuus ku jiray markaa wareeys iyo waran baa bal meesha ka waran tala wanaagsan buu siiyay wuxuu Soomaad maqal afaf qalaad dadka meesha ka shaqeeya waa dadka wada yimi meelaha kale ama Sawaaxil ha sheegayo ama Amxaari ka sheegayo ama ha sheegayo Afar ha sheegayo waxaan kaasa markaa buu yiri horumar ma leh ogow buu yiri waxaad igula talinaysaa buu yiri wuxuu yiri waxaad tiraahdaa qoladii ku noqotay adigu ma xiisaynaysaa waxaan xiisaynaya baan inaan Soomaaliya ka shaqeeyo taladii waan ku siiyay markaas wuxuu yiri adigu waxaad yeelaysaa madaxdii hadda dib ugu noqonayso doonayso af Soomaaliga inaad ka shaqeyso ku noqo adigu ninkii madaxda ama deedeed markii uu tago marsaale waxaan aad u xiiseynaa inaan ka shaqeeyo dhinaca Soomaaliga qoladan kalena waan caawinaya si aanan u noqonin nin wax diidaya dimo shaqadii diidaya wanka soo deetan markii uu gaaro arkaanku meesha wax kaaga dartay ayuu yiri laakiin markii dambe warqad baa ma qortaan waxaan doonayaa inaan ka shaqeeyo halkan xiiseynayo wasiirka lafaantiisu baa soo ogolaaday yiri inaan halku xiiseynayo marka aan la dhiiri galnay waxaan dhalintii kacankan oo qoladii ugu horeysay inkaas shaqada ku jirtay saasan deetan af Soomaaliga ku tagay sidii reer Muqdisho ku bilowday shaqada reer Muqdisho maxaa ka xasuustaa wixii u horeysay oo aad samaysay oo warar ku saabsanaa horta markii ugu horeysay waxaan tababar baan siinayo toos adigu ma gelin waxa laga yaabaa waxa dhacaysay qof waay aragnimada ragii meesha joogay daawagranda lahaa aqoon wanaagsan lahaa ayaad raacayso dhageysanayso eegayso bal hadda sidoo uu sheegayo aynkaasa laakiin markii dambe waan garanayaa anoo group nin niman ka mid ahaa one sentence weer qora oo dhaha bal akhri hada Soomaali garan weer qora bal hada saadorna soo waan xadintu ka eegay bal Soomaali garan Mark Fried base ka jiro waxaan garanayaa nin nagu jiray inuu waraanigu ka shaqeyn maayo halkan iga daay oo markii dambe transmitterska loo bedelay adigu markii dambe kolba imaan qana markii dambe faallooyin iyo wararkii iyo aynkaas ay kolba tartiib marka inta badan waxaan u badnaa xagga wararka iyo aynkaas iyo barnaamijyada ayaan u badnaa markii u horeysay lagu yiri waad ka bixi kartaa war baad akhrinaysaa toosa exactly xaqada marka garmay laakiin ku jiro ma de garanaya oo dhaxtigu ma garanaya waxa akhraya oo warar waxa akhraya hadu markii dambe training baba inaantay jarmalka training oo radio journalism si barnaamijda loo sameeyo waxaan oo dhan ugu soo barayay mogta sanadii dheeraad bay ahayd nasiiba waxa ba noqday labadii qof ugu horeeyay la diray jarmalka laga tuuray markii ugu horeysay dalka dibadiisa u baxay waa markii ugu horeysay dalka dibadda soo baxay waa Italian raacay ila Soomaaliya ma jirin Soomaaliya ma jirin marka halkaas waxay kaga bilowday tababarkii waan bilaabay muddada aan wadnay waxaan sameynay marka barnaamijyadii baad sameynaysaa Ingiriis ku sameynaysaa waxaankaas oo garan oo kaliya ma he dad kala jaado matalan waxaan group Asian iyo African baan ahay Iran Sudan Zambia Malawi laankaas isku jiraan marka waxa team baa sameynaysa kolba barnaamijka sameynaysa isla shaqeynaysa gartay marka wadankaaga waa ku daray shaqadii waa lagu daray wadankaaga matalaysa marka waxa jirta dareen wadan jacayl iyo in maaragtay dadkaaga iyo dalkaaga matalaysid hawshiina halkaas tababarka ku soo dhamaaday tababarka markuu soo noqday deetana ku soo noqday anigu saaxiibkay kala wiga hadhay anigu deetana soo laabtay deetana idaacadii baan halkii kaga biiray waxaan soo laabtay 1975 waqtigii ma garanaysaa shirkii adoo garan maysid ayaa ma garanaysaa 74kii AU da loo qabtay Muqdisho maantaasay horta maantaan u baxay Jarmalka waxaan garanayaa airportka Addis Ababa ayna la fadhiisatay diyaaraddu markaan runwayga agtiisa marayna ayaa nala joojiyay boqor Xayla Salaasi ayaa ka tagay markaas oo Muqdisho tagay shirkaas u socday marka waxbarashadii tareenka soo dhameystay radio Muqdisho dib ugu soo noqotay adigoo khibradii aad haystay mid ka badan haysta energy fara badan baa kugu jira iyo dardar gelin
yaad marka uu meesha ugu soo noqotay oo kasii shaqaynayay marka kula joogay saaxiibadeydii kale intooda kale meesha uga sii joogay waxaan is weydaaranay allah yarxamo Yoonis Cali Nuur markaan ka soo baxay ragga badankiisu waa wada tageen waa la wada tagi jiro maartay trainingkaas waa soo training aad u wanaagsan xaqiiqada ayo waxaa lagu tababarka lu siinay maadaama maadaama aad Yurub joogtay xitaa waxaana la geyn jiray hay-adaha maaragtay EC-da loo jibarigaas oo Brussels Strasbourg Luxembourg Berlin oo kala go'nayd si maartay fikir wanaagsan aan uga qaadan waa gartay warbaahinta dadku markay ku jiraan waxa jira dadku barnaamijyo gaar ah oo xiiseeyaan kuwa aadan jeclayn oo iyadoo gadaal madaxdu ka riixaysa aad sameynaysid maxaad ugu jeclayd adigu maxaad sadiidi jirtay anigu horta ma ciyaaro ma samaynin hay musiga bargii aan joogay BBC-da waa sheegi jiray laakiin barnaamijyada anigu jeclaa waxa kuwa aan wax ka kororsanayo anigana wuxuu igu kordhinaya dadkana wuxuu kordhinaya research caynkaas oo kala waan jeclaa iyo wararkan dee inaantay reviewada iyo caynkaas dee warkana waa akhriyano dee barnaamijka waad samaynaysaa khasab weyn laakiin waxaan u badnaa wararkaas iyo barnaamijyada caynkaas ayaan u badan samayn jiray waxaa la yiraahdaa waryanimadu waa ammaano ummad baa ku dhageysanaysa kaa caqli badan kaa caqli yar kaa aqoon badan kaa khibrad badan مسؤولية جارة كاسارة واحد قد بنيسيد قفكي إن وحكو بيرسيد بعد دونيس عندنا واحد كورسيد مسؤولية أنت لك بس كسارة جرتي دت كاس وما تصوم على له اللي يستنا صور فريسة. هو واجب بيت هيدا أنا مارتي دتك قفك مركز حوش يجي يسوي حد سمين سا سيوج هذا بحاجة ورا من سوق عليه هذا عافيمات كورا من سوق عليه مثلا واحد الشيء يجي يسا إنه يهاي وح مارتي ده وحكر لنا هذا سياسة كهذا oo مثلا meel siyaasad ka socoto oo kale waa inaad sawirka oo dhan siiso waxaan si u yahay waxaan yiraahdeen informed decision yaa wuxuu ku go'aan qaato qofka sax marka hadaanad fair noqonin waa lagu garanaya markiiba language-kaaga la garanaya hadaad fair noqon soo aad garan marka idaacadda maartay horumarka samaysa waxa weeyaan ta balance samaysa soo aad garan oo war dheelitiran dadku siisa dad go'aan u gaareen si go'aan gurtoono hadduu aqoon ka kororsanayana aqoon day soo dheelitirano aad adigu la fahantaad soo baadhay ee iska fadhiisan mayso waan soo baadhay wixii waa inaad ogtahay qofka aad interview garanaysaa soo aad waayo haddaad u tagto aad tira aan ku dhahdo magaca anoo waraysi kugu iman waxa igu filnaa inuu ku dhahdo maxaad iga soo doontay haddaad magacayga ba garanay maxaad sheegaysaa miyaad soo research soo samaynaya marka barnaamijku waa inuu yahay mid isu dheelitiran مثلا waxaad eegtaa BBC doo kale waxa jirtay de waqti aan aad loo dhageysan jiray dhulka Soomaalida waqti aad loo dhageysanayeen waa jira waa gartay maxay kula duwanaan laba waqti farq waxa weeyaan yani media dalkaas hadduu furfuran yahay oo wixii de khaasatan markay dhalinyarada timaado kale iyadoo isu dheelitirka warkaaga hadduu mediahaas yahay mid furfuran مسمعي وحكيه ميدي هيسي مركب حلقة واحد بدن نانو جبهنا حاجة مثلا هذا كسوق هذا وقت كي civilian government كوكله ودي واحد سوبر حجري جرايد قيمة له إنك صارنا ديان وسيل لكن مركان دوب بعدنا يجي أو في إنجليز كسوبر حي سيدي تدل كلا أورن جراي وكله أو دخل نكور جراي جمعة لمدو قوري جراي وإسنا إنك سكون lawyer كها أو تلين لتربون يا تربون بقى لو إنشر منايا مدف عربي يا سودو محمد وردحنا لو مركا فلانقين يوحي جراي baahi marka looma qabanin baahi looma qaban karo laakiin marka warka dhinac laga xidho qofku wuxuu raadinayaa meel kale oo uu ka helo wixii dheelitiray waxyaabaha BBC-da sii siiyeen antay sumcadda waata gebigeedana hay'adda caynkaas oo kale markaad isweydiiso maxaa BBC-da loo abuuray laanteeda Soomaaliga markaad eegto waxaa la doonayaa in la balance gareeyo xoog lahaa beriga وقت الجبنة الدونيو صوت العرب من القاهرة وأوليه الجبنة ماذا؟ لا صعدة أي ودي ماشي أنا ده واحد شوقي استعمار بقى شوقي سواد قرن واحد ساقي ده ما أرتي نيجاتيف كوا هيا الشيء مركب واحد صدي هذا ما كتاريخ توبة ده BBC سواد سكشن لفرو ممكن كفرنر كهاي شوقي نان أرجيسة هلا فرو سي بالانس لو هذا شغله أنتي سوي شيء يا ما لو كهالينه ما لو كهالين ama BBC-da haato Voice of America markii Mareykanku ay galeen Soomaaliya markaas baahida timayn la furo adaa la doon lagu fulo askariyo moogta ya
saasay ku timid sidaasay ku timid waa gartay xoogaa warbaahintaan la joogaynaa iyo dhowr dadoo aan isleeyahay dadkii ugu waaweynaaday waraystay ka mid maadaama aan soo koobi karinin markaad eegtid waxaad ka hadashay in la helo hadalkaaga inuu cadaalad ku salaysan yahay aadan adigu cidna la jirin markaad ummadda wax u sheegaysid warbaahinta soomaalida maanta jirta siyaasad ahaan uma madax bannaana la yidhaahdaa lacag iyo dhaqaale ahaan uma madax bannaana maamulay hoos tagaan kala duwan qolo walba t v iyo waxay leedahay idaacad iyo radio gaar oo ayaga afkooda ku hadla sidee loo ilaalin karaa in dadkaa soomaalida wax dhegaysanaya aan dhagahooda la wasakhaynin ama waxaan u qalmin loo sheego waxa dhabtaa loo sheego haba kharaaraadaan horta dee imanka waxay noqotay butalaqsi soomaad garan oo wariyihii fanaanka iyo wariyihii markaad egto imanka haddaad dee fanaanku hees qaadayo soomaad garan oo codkiisii qofna wuu jeclaan karaa qofna waa nabcaanka waa ma jeclaanayo soomaad garan waxaan laga yaabaa dadka qaarkood imanka berigii hore dina lama odhan jirin naantay xaggaasu ka yimi xaggaas waryahabana loo yaqaan laakiin waxaa laga yaabaa qofkii in la yidhaahdo xaggaasu ka soo marka bias bay wixii noqdeen wixiina farahay ka baxeen oo waxa weeyaan dee idaacadahoo kale editorial judgment maaragtay principles aad raacay mabaadi aad raacayso warka ku eegeyso ayaa jirtay laakiin imaka waxaa weeyaan imaka xitaa idaacadihii waaweynaa ama b b c haato mid kala haatee waxaa ka dheereynaya dee twitterkii baaba ka dheereynaya soomaad garan marka waxaa horta badatay taasoo hadday koobnaan lahayd influence xoogaa la samayn lahaa laakiin haddana in kastoo ay taa tahay haddii aad sheegayso wax quman soomaad oo aad cadaaladii ilaalinayso ka ku nacay marka la fahanteeda dee wuxuu odhan karaa war markuu dhegeysto uu dhegeysto war halkanaa warkii wanaagsanaa jira soomaad garan waxaa laga yaabaa in barnaamijyada qaar laga cawdo oo kale haddii la doono ya waa caadi weeyaan laakiin waa inay sasaxdo imka waxaad soo qaadaa barnaamijkii ugu dheeraan sameeyey xidhiirka taxanaha waa barnaamij loo jeedaa qarni taariikhda qarniga soomaad garan cid ka soo ashkatooday maan arag waayo markaad qof hesho qofkaas wuxuu kuu sheegay haddii ay jirto sheeko kale oo ka gedisan oo aad sheekadii raadsa inta aanad sii daynin saad isugu dheelito marka qofkii waxaad leedahay sheekada dhinacaas waa caynka dhinacaasuna waa caynka macluumaadka horey jirayna waa caynka waa caqligaaga la kaasho marka waad u bandhigaysaa adigu maaha inaad tirahda kaa raacna kaa raac laakiin hadduu kaa helo macluumaadkii waa saxmi karaa ya haddii laysku dayana waa la samayn karaa imaka haddii laysku dayo aan waxaan qabaa in la samayn karo haddii waxaad sheegaysa wax toosan uu yahay ya oo ah fair ahoo dee dad qofkiina wuxu kordhinaya dadku way dhegeysan karaan waa dhegeysan karaa bayaniga waa gartay soomaaliya waa ka soo tagtay intaada soomaaliya kasoo teginin warbaahintii baad ka tagtay oo ka ruqsaysatay sacuudi airline baad shaqo ka bilowday maxaa kugu dhaliyay inaad warbaahintii ka tagtay oo sacuudi airline shaqo doonatay waxay ahayd horta dee waddankan oo isbedelay meeshii laga shaqeynaya markaasna dhaqaalaheedu ma buureen soomaadka nolosha waa soo adkaanaysay marka waxaan horta wax bedelo ya meel kaad socotaana ma jirino war un baad akhriyaysaa editor baa tahay soomaad garan jagooyin fara badan oo doondoonaysaa ma jirto waxa kooban bahayd marka inaad bedesho waan jeclaystay moogtay soomaad garan inkastoo xaqiiqdii markaan ka tegey waxaan diyaarsadaana jirin soomaad garan waxaan islahaa something will come up marka soo tii maamaha soomaalida jirtay mara guntiga kuugu jiray mara geed saaran looma daadiyo haddii wax meel ku yaalay aan jirin qoyigii iyo reerkiina aad ka soo tagtay xamarna aad joogtay waxna aadan haysanin meeshii yartaada wax ka helaysa dad dayacday maxaa tala ah soomaalida waxay dhahdaan ragga socodku waa u door hadduu moodku daayo marka haddii meel aad isleedahay bedelo ku dhufo habaqin kiisnimo xagee kaa toogtay marka soomaad garan marka in fact marka dib u eegto sidaad adigu sheegaysa oo kale dee waxaad oranaysaa muxuu isku haleynay xitaa baasaboor maan haysan markaa haddana islaa baxa laakiin ilaahay waa fududeeyey soomaad garan oo xitaa helitaanka baasaboorku dhib u ahaa waagaas dhib u ahaa 2-3 wiil markaan joogay ayaa Sacuudi Airline baa timi maan xitaa xogaal waan ogaaday deetana waxaan hadda deynta helayso bal shaqo raadso
kale oo maartay goor soo garan isku sii maaraysa in fact tana iyadoo shaqaalihii bal qaatay ayaa nin ka shaqeyn jiray wasaaradda warfaafinta oo ciga loo oran jiray wuxuu ka shaqeyn jiray wargeyska Carabiga ayaa la shaqeynayay qoladii Sacuudiyiinta ee shaqada qoranaysay deewaana kolleegayagii waa inaan wada garanay aniga dal marba bay israacnay waxaan ciga u tagnay waanu sheegnay maalintii dambe wuxuu yiri Soomar goor hore subax warqad buu qoray ninkii waanu tagay markuu tagay dadana markuu akhriyo wuxuu yiri intuu warqadii soo saaray iyo qalin buu application horteeda ku qoray af Ingiriisi aduu tiibaan qoray markuu akhriyana gabadh xog haynta buu dhowr qolada training ku jirta uge qolihii ka horeeyo tobabarka waaba la qatay anaa ugu dambeeyay show anaa ugu dambeeyay marka nasiibku ma ogtay wuxuu ilaahay kula damco sidoo ku gashay sidoo ku galay 2 sano dhow meel shaqeynay markii dambana aan ka yimid aduu marka xiriir xagga BBC da ayaan sameeyay oo Cabdullaahi Xaaji ayaan intii aan Saudi Airlines ka shaqeynay 2 jeer baan halkan imi oo training gaaban oo 2 weeks meelahaas mid walba 2 toddobaad ayaan intii waan saragnay wuxuu sheegay waqtigaas markaa in laga yaabo waa la hadlay waqtigii Mr. Thatcher ra'iisul wasaaraha ka dalkan inay qaybo kamid ah BBC oo doonayaan inay jaraan dadana uu sheegay waqtiga laga yaabo arrintaas ay dhamaato xaqiiqada markaad eegto inkastoo inta BBC da inantay ay ka dacwoonayeen dawladuhu oo tii maxamed siyaad baraba ay kamid ahayd Djibouti halkaas haddana iyaga la fahamtooda soo codsaday sidaan warka ku maqlay inaan la jarin codsiga ka yimid xaggooda codsiga ka yimid gartay BBC da ku biirtay sida lagu qaatay muddo hadda 20 sano ku dhawaada joogtay inta BBC da la shaqeynaysa dalkii baa dib ugu noqotay waxaad waraysi la yeelatay maxamed siyaad bare mar baa jirtay marka waxay qolooyinkii kale inaan groupkaygii markaa yimay BBC da qaatay inta kale mid walba wafti buu ka baxsaday anigu markaa ka baxsan waxay 1983kii ayaan deetana Muqdisho tagay Muqdisho markaan tagay waxaan tagay waxay markii chat-ka la joojiyay marka nin Xuseen Tanzan loo jeedo qaban qaabinayay inuu professor ahaa ayaan inta soo maray waxaan doonaynaa ka warantaan adunkaas inta markaas chance kan helay waxaan maxaan siyaad bareysana waraysto marka waraysi halkan laga qorsheeyay ma hayna marka tagtay bay waxa ka bilowday shaqada ma lama qorsheeyay marka aragto sheeko kugu soo baxday ana la jaan qaatid oo aad wariye tahay idaacada inay doonayso inay warseesho markaas aan gudbiyay dadana su'aalo waana waqtiga xiisadaha iyo waxaan oo taagnaan ee caynkaas oo dhan soo marka su'aalaha aad madaxweynaha weydiinayso waa in loo sii hor gudbiyo warqadda sii qoraysay waan gudbiyay muddaan sugayay anoo isla iskaba tag oo bookinkii diyaaradda ku qoran habeenka inaan dhoofo xagee socotaan marka waxaan ku soo noqday London baan soo noqonay ayaa waxaan tagay iyagoo nogay ma tagay Hargeysa deetana waan ka soo laabtay marka ka soo laabtay way ogaadeen inaan tagay oo marka laga yaabay marka tension xoogad ayaa jiray oo dhibaatooyin baa taagnaa marka Yaasiin Xaaji Ismaaciil oo wariyaha madaxweynaha markaa ayaa ila soo hadlay adigu ilaa 5 meelaha galabnimo markaasuu meed waraysigii doonay ayaan doonay sidii soo jawaab waayay tana haddaan ku geenaynaa buudi hudaalkii buu gaari ugu qaaday uu yigay maxaa siyaad bare adigu waraysi markaa ka qaaday inaan marka se la kulankiina noo sawir adii odaygu markii la soo kaxeeyay horta markaan siri galba midba qoris la ka hortaagay markaasuu sooda waraya siyaad bara oranay sooda ما شو كان قولي سبتي سعد لما ما بنتوقع ماشي إنه قرط ده إنه ده وأنا اللي وضع ده إنك وريها مدحوينها هواي وضع سود أدوان قال يا كاسو هندون ده تنور رئيسي أنا وحامل سوي ورقدي ده ليش كتور أنا يقول لي دي مسيتو أي تيان قريب بالقهر يعني دنيا سوي كده البني إذا ما سوي شوابين مركزان تورقات فانس لو سؤال قر شابك صار وكان ده ورقد داعي سؤالي وقرن سؤالي وقرن تيما كقاطو أدو كوي قار كلابا ويدي ويدي لكن waxaa muuqatay markaa de shaki laga qabo yani maadaama BBC da ay maartay wax walba sheegaysay
kalsoonida waxa abuuraysa مثلا waqtigaasi waxay kor u kacday in bulshada la jeclaado qolada mucaaradkana wuxuu waa la sheegay dhinaca dawladana waa la sheegay ya laakiin dhinacii dawladda keedun baa la maqlay ya marka labadii marka la isku daro waxa ka soo baxay kalsooni baa abuuraysa taas ma ahayd su'aalihii aad weydiisay maxamed siyaad barre oo markaas aad isleedahay hadda way ugu waaweynayeen maxaa kamid ahaa isleedahay waxaa kamid ahaa inaantay waxaan isaga ka hadlay markuu ila hadlayay ayuu wuxuu dhanaantay dhowrkan mucaaradka meelaha ka qaybinaya nafta lahayna caynkaasa waxba iga qaadayaan caynkaasa markaas aan waxay dhinatay iyaga marka la iska dhaafo dad wadanka gudihiisa jooga mucaarad gudaha abaa jira maxaad ogtaa ka leedahay wuxuu yiri marka uu dabciyey wuxuu waa xaq bay u leeyihiin in mucaaradaan oo caynkaas oo anaga Soomaaliga wanaagsan diidi mayno jidkaas xagaas oo siyaasadda ka daba waa sidaasi waa soo dhaweynayna wixii anaga wax noo sheegay xagaas oo wariyaha agartay waxaad kaloo waraysi la yeelatay sidoo kale maxamed ibraahim agaal Allahu naxariisto maxaad ka xasuustaa waqtigaasi waxa ahayd aan la yeeshay waqtigii xagga waqooyiga dagaalku ka socday marka waxa la yidhi markii hore Ethiopia disability program dadka naafada ah oo la doonayo in barnaamij laga sameeyo markaan tagay waxaan tagay xiriyaha qaxootiga meelaha caynkaas ee jira ayaan tagay waxaan arkay deetana chance ah inaan tegi karo marka qolada dawladda wariyaha hargeysa jooga ka soo waramayay laakiin qolada kale uma tegi karo waqtigaas ee moogta marka deetana maxamed cabdillaahi oo marka madax noo ahaa ayaan telefoon jigjiga uga soo diray aan leeyahay chance-kaas jira marka by that time qayb baan tagay dhinaca aan hore loo tegin marka waraysiga noo sita ayaan kaawan hayaa marka waxaan u baahanahay kii kale dhinaca kale ilaadii kale wuxuu noqonayaa sheeka dhinac un baad sheegaysaa moogta sidaasaan ku tegay marka waxaan su'aalo isku midana waan weydiiyey si maanta waxay isugu noqdaan balance moogta oo ujeedadu waxay tol maxay isku hayaan waxay isku dilayaan maxay tahay kaas waxa waraysigii cigaal waxaan ka xasuusnay waa maalintuu yidhi inantay maxay isku dilaysaa maan ku yidhi wuxuu yidhi cilmaan qabeen haddaan garanayo dadka tirada badan ee naga dhintay waxay ku dhinteen saasuu ku yidhi waxaan ku yidhi maxaad ugu tegi weyday marka hadda anka nin qura ku haysta tolo seelo adigu waxaad ka garanaysay inuu bedelaad uu doonayo moogta oo uu leeyahay ma soconay hay'ad ka garanaysay waraysigii ku xigay la fahantiisa wuxuu yidhi waa mashruuc gebigiisu oo yoon iska qaaday moogta ana lacag baa laga qaataa qoladan lacag baa laga qaataa adigu marka waxaan is leeyahay waraysigii markaan sii daynay wax tarinayo shaban malayo labadii raay soo qofka soo waa garanaysaa qof baa iga soo waxay bariga Sacuudi markay yiraahdeen ugu yidhinatay sawir baa noo muujiseen waraysiga ku saabsan xaaladda dalka sugay waa gartay sidoo kale dagaalkaas hadda dawladda Siyaad Barre iyo jamhadda SNM u dhaxeeyay waxa ciidamada haystay oo generaal ahaa Cali Samantar isaga laftigiisa waraysi waa la yeelay waraysi waqti dambu ahaa waqtiga dagaalka ma ahay dagaalka kadib aan sheegay inta Mareykanka joogto waxa ku jiray barnaamijkan taariikhda oo dad fara badan oo qaar waraysiyaan qaadnay markaa qaar hore u jiray baaritaan research marka sheeko isku xiriirsan oo nin walba oo taxanaba Soomaad garan marka dagaalada laga hadlayay isagoo aan waraysanay Morgan oo kale aan waraysanay qoladinka kale aan waraysanay marka waxaan weydiisay maadaama uu asagu ciidamada u haystay dhimashadii iyo dhaawacii shacab Soomaaliyeed oo guryahoodii jooga ay dawladdu sababtay isagu dawladdu waa diidana marka wuxuu leeyahay dawladdu maartay mucaarad bay la dagaalamaysaa oo Soomaad garan laakiin sheekada waa arkay warka laakiin ma waxbaan dilay isagu marka waa mucaarad iyo dad wadanka qaran dumis caynkaas ayaan la dagaalamay isaga Morgan bacaynkaas ay lahayn moogta laakiin xaqiiqada waxa filaya deyn la iska fahmay waayo markaan ka faa'iideystay marka waxa weeyaan wadan ku sheego markaan ku dagaal 64kii halkan joogay ciidamada Soomaaliyeed ilaa 9 qof ilaa 10 qof baa hayna joogay
su-aasha markaan weydiina waxaan ku yidhi ciidamada inaantay matalan 77kii galay dagaalka imsaha xoogooda wuxuu yidhi 200,000 100,000 ilaa 100,000 marka halkaan adkayaasay xooga dee jiray intuu laga moogtay xoog badan bay ahayd waa gartay waxaan rabaa inaan warbaahinta ka yara tagno laakiin intaanan ka teginin dad badan oo dhalinyaro ah baa warbaahinta ku jira oo aniga kula fadhiyaan ka mid ahay aad ka khibrad badan tahay ka aqoon badan tahay maxaad is leedahay waad ku biirin kartaa ama kula dardaarmaysaa dhalinyarada soomaalida ee warbaahinta ka shaqeysa rag iyo dumarba adoo tagu horeysa waxaan waa dee arag war markaad sheegayso basic question oo su'aal asaasi ah ayuu yeelanaya soo wad garan maanta markaad mujtamaceen eegto horta saddex wax loogu sheego waa adkaanaysaayo dadku waa isku mid bay noqdeen ya meel walba qof baa ka hadlaya waqtiyadii dee hore aan noo galay wax kala dambeeya ay ahayd marka waxa weeyaan inuu iska hubsado wuxuu sheegayo soomaad garan oo uu eega lafahanteeda waxtarkeeda hadday dhibaato keenayso soomaad garan waa war laakiin inuu warkaagu dhammaystiran iska hubto ayaa muhiima oo aad sheegto xiriirkaaguna u bato ya laakiin waxa weeyaan historigaad sheegaysaa inuu noqdo mid runtii sheegaya mid runa oo aan ahayn mala awaal moogta caynkaas oo mararka qaarkood uma baahnid warka inaad sheegto hadduu yahay mid aan kuu dhammaystirayn markaad eegto de website-ada iyo waxaad odhanaysaa professionalism kuma jiro xirfadii waa ka maqantay war ahaaneed Soomaaliya oo waxba hadduu doono kaaga dhigaya waxa kaloo muhiima qofku wariyuhu ciduu wareysanayo marka hore waa inuu ogaado waxaanu sheegayo waxaan waxa mujtamaca loo sheegi karaa ma yahay ya awoodii ama authority-gii ma leeyahay qofkii arrintan ka hadli lahaa ya waxaa laga hadlayaa madaxweynihii qofkii suuqa joogay ya kii hogaankii dhaqanka mid waliba meel buu ku qabanayaa shir jaraa'id wuxuu doonaa waxa jiray baan unay gabay maxal cilma fiiruha mase al xuseen waxa ku jiray in ahayd dowlad wada karaani dunidaba ma joogto kulligooda loo yaro qof walba waa la simeeyay ka wada waa la simeeyay marka dhibaatada Soomaalida imika haystaana taa weeyaano qof waliba media hande iyo technology-gana wuxuu keenay in mid walba dhaana shir jaraa'id baa qabanaya ka waa gartay BBC-da waa ka tagtay halkan London baad joogtaa meelo kala duwan oo London gudaheeda iyo organisation kala duwan baad la soo shaqeysay maxaa ka xasuustay runtii BBC-da baan u shaqeynayna haddana inaantay interpretisna waan samayn jiray waayo waqtigaa inaantay Soomaali badan ma jiro markii khaasatan markii dadku ay soo qaxeen oo kale tarjumaan baa loo baahnaa tarjumaan anagoo shaqada hayna haddana waa tegi jiray laakiin waxaa jirtay markii contracts baa bariga hor jiray oo 3 sanadood baa lagu siinayaa 3 sanadood oo kalena lagu kordhinayaa nabadgel yahay marka bariga hore dadkii hore ka shaqeyn jiray markaan duu eegay 3 sanadood hore ma bay dhamaysan jirin 3 sanadood deetana Soomaaliya tagi jireen meel bay madax ka noqon jireen ama idaacadaha baahidaas ma oolin markii dambe dalkaagu xumaado nabadgelyadiisa wax markaad eegto de waxaad oranaysaa ma degdegay meel aad ku degtaa ma jirin marka waqtigaas 6 sanadood bay ka dhamaaday markii dambe waxaan ka shaqeyn jiray tarjumada waan ka shaqeyn jiray waxa jiray ta kale waqti ay Soomaalidu markay soo galeen iyo bangolooyin badan ah bangolix-ka iyo ayaa job club kameel la soo aray shaqo raadinta ayaa waxa la sameeyay job club ay wadaagaan Soomaalida iyo bangoliga East London halkan Brick Lane ku yaalay marka halkaas maalintii qaybna waxa lahaan jiray qaybta kalena ujeedadana waxa qofku inuu yimaado bay ahayd waxa uu ka helayaa shaah u cabayay jareedii uu akhrisanayay baadhayay iyo telefoonkii waxa la shaqo ka raadsan halkaas ahayd laakiin dadkeenu ma badnayn markaas dadka soo galayna waxay u badnaayeen dad laga yaabo ama siyaasiyiin ama xaqiiqdii kama faa'iideysan jirin ma oran kara markii dambe sanadan buu u xidhmay markii dambe dadka trainings kala jiro iyaga la fahamtooda meesha lagu qaabin jiray waa gartay warbaahintii halkaas uga soo tagtay Soomaaliya Saudi Airlines waa ka soo shaqeysay hawlo badan baa soo qabatay BBC ka soo tagtay siyaasi baad noqotay
ama aan idhaahde dowladda Somaliland baad waxaad u noqotay inaad diblomaad u noqoto u shaqaysid transformationka intaa la-eg sidee u timid ma wax lagaa codsaday ahayd mise waxaad ugu xiisaynaysa أنا وحسيني أنا الله يقعد صدي وكان كله هي مثلا ده إنك تقول دوات سوماليا كان هذا هذا نحن في قف كستا وسومالي مو في لنا يصير نقطة أبدا يا وحوم بهجاجي يلا صلاحة صار نقول ما يصير وحن قبح حتى كوي لده قالمي دين عيد ولده يا الشعب من اسمه الهين إذا ما صوروا حد إذا ما صورن مركا فكر كوي يقول شيء مركا وهرا مثلا أنا ده إلى كولجي شوجا بي سي دي شغالة إن بروفيشن كلا يشوا سواد كنا مركا سنة نايتسكي أيا وحنا كوتشري ويستمنستر يونيفرسيتي مركا تقري قاعتي وحنا بلعب كورسز كرو دبلوماسية سواد كنا مركا هالك سؤال وجودي دبلوماتيك أكاديمي أوف ويستمنستر يونيفرسيتي بالينا وكورس في رمضان international relations كيو يدواسك مركا حساب واحد رجع بين دلك يجوا هجاجتهم halkaas aan ka galay markii dambana de waa la iga codsaday Somaliland bay iga codsatay inaan tago Hadsaba seel ugu keenay arintaas kulanadii madaxweynaha dhex maray kul madaxweynaha iga codsaday sida iga codsaday markaa shaqeynay anigu BBC-da markaa waan aqbalo waxaan idhi okay waxa inaad bedesho maadaama intaas oo dhan waad u baahan tahay ta kale kama fogeyn ma ogtay markaad eegto de inaan warfaafintu haddii goor waxaad ka hadlaysaa wax weeyaan wada hadalla meel ka dhacaya Soomaad garan madax issueska taagan sida negotiationska loo sameeyo laba wadan oo ima ka soo qaado markaad eegto de Brexit waad aragtay Soomaad garan qolana waxay leeyihiin gumaysi baan ka baxaynaa qolana waxay leeyihiin kaxaynana haddana waxay soo imanaysaa line dhexe asaas weyn Soomaad garan wala maxaa suuragal ya sidee waa marka imka Soomaalida ka maqan moogtay maxaa suurtagal moogtay in la yiraahdo ya maxaan ku heshiis ku noqon karnaa ya oo lagu wada hadli karaa ya wada hadalkaas iyo siyaasadda hadda maadaama Somaliland soo hadal qaadnay iyo hadalladaas dib baad hadda waxa laga yaabaa inaad ugu noqotid Somaliland dhawaan haddii la yiraahdo wada hadallo hore waxa jiray Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeyay waa jiray oo shaqeyn waayay laga yaabaa inaad madaxweyne Muuse Biixi ku biirisay talo iyo ra'yi iyo tiraahday war wixii hore loo sii hadal qaado horta hadii inaantay lama joogay hadduu codsanayo ama ugu muuqato waa halkeedo kale de wixii qof tala hadaad hayso ana talada bixiso waa muhiim weeyaan laakiin waxa weeyaan wadan wuxuu qiimo ku leeyahay wada jirka dadkiisa Soomaad garan imika waxa laga yaabaa hadaad negotiations galayso waxa laga yaabaa inuu ku yimaado qof doonayo inuu wadanka wax ka ogaado Soomaad garan marka muhiimadda waxa weeyaan in dadka wada jireen Soomaad garan hada waa foreign policy internal policy siyaasadda dibadda waxa hagaysa ta gudaha haday ta gudaha aan jirin waxba ka soo qaadin hadii gudaha la isku dilayo ama la isboobayo maxaad u sheegaysaa adduunyada kale bariga horena de yaani qalabkan faraha badan technology aan jirin de dawladda warkeeda la maqlayo ya hada meel wax laga maqlayo ma de madaxweynaha warkiisa soo lagu hayaa markiiba waxa qofka ajnabiga waxba uma sheegi kartid waxba uma sheegi kartid kaaba war badan sometimes sir malihid ya marka waxaan hadduu maamul dawladeed jiro ta ugu horeysa waxa weeyaan confidentiality wax la jirto sir weyna jirto Soomaaliland sida loo kala dambeynaya inay jirto maamulka dawladdu ma aha madaxweynuhu waa iska politician sare Soomaaliland laakiin waa structure ka bilaabma DG-ga ilaa halka ugu hooseysa ya silsilad weyn kaasana burburay moogta waa gartay ma laga yaabaa inaad ama xisbiyaasha Somaliland ka tirsan ku biirtid ama maalmaha kamid aad madaxweynaha u istaagtay ilaahay baa og laakiin ka waday imika markaad eegto duruufaha siyaasadda ee yaala dadkii lama qala lama maqlaan sidaanu ya waxa laga yaabaa imka ninkii mutacallimka ahaa wuxuu magan u yahay oday aqoontiisi ma shaqeynayso inaan baa maraan beri tagay Hargeysa oo beri hore ahayd ayaa maalin noo soo gala anagoo meel fadhina isagoo dhididsan markaasaan dabadaanu ka yimid markaa anu markaa shaqaanu tagay meesha oo intaan BBC shaqeynayay
markaasaan war maxaa ku helay adiga diidsane markaas wuxuu yidhi naantay dibaddan ka imo waxaan isla xoogaad soo baratay dalka ku anfac markaa buu yidhi markaan meel tagaba oday ma wada taa unbaa lagu yidhaa markaa maanta buu waan kalahayo odaygii baan isirraadso waa laga hor kaxaystay buu markaa waxa weeyaan aqoontii waxaad moodaa inaan qofkii wuxuu yaqaana tixgelin caynkaas aan la siinayn soo dhulka Soomaalida markaa degto insha Allah waa laga bogsan doonaa ya insha Allah waa laga bogsan doonaa gabagabadii gunaanadkii baan kusii shaqeynaa waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo dad waxaa jira fanka iyo suwaanta xiisay adigu fanka iyo suwaanta ma xiisayn jirtay dhalinyaradaadii ilaa iyo haatan dhegeysiga waan jecel inaan dhegeysto laakiin dee fanna ma sameeyo soo arkan oo waan samayn jirnay marka intaan waan jecel inaan dhegeysto مثلا ujeedada مثلا kuwa مثلا dhaqanka ka hadlayo kale ama erey aad ka faa'iideysanayso kale Soomaad garan waad xiisaynaysaa moogtay iyo music la fahantiisa waxa laga yaabaa xiisayso laakiin kuwii hore qaraamiga ahaad ka hadlaysaa mise kuwan iminka cusub qoladii qaraamigana kuwan dambe markaad eegto iyo kuwii hore dee wadaniga la fahantooda markaad eegto kale Soomaad garan anigu waxaan dee garaadaystay iyadoo heesihii waqtigii gobonimada oo kale la qaadayo ودي وانقرنا يسيقول الله هو أرلجينه كي أيان لأن أبارسن أو هذا هذا عن كاسو هذا يكو هرديس جوينات سرعي أو كلام كذا أو درارتي ولا كيلو ديسيون هرتي دش كذا من كاسو سو كوبيا كونفورت توان سنوات أيا دولنا لو ديار جريني سواد جرا wuxuu soo koobaya wuxuu ku leeyahay dharaartii walaalkii loo dhisay wuxuu ku soo koobaya in la sii diyaar gareynay in hortii dhashay soo ma soo dhicin taariikh uu ku sheegaya moogta Soomaad garan suugaan buu ku qeexaya laakiin hadii goor waxaan jeclahay kuwa maartay aad ka faa'iideysan karto aad ka ama erika yeesan karto ama dee ra'yi ku jiro ra'yi ku jiro jacaylka say isku tihiin aniga jacaylku islaantaada kor hadaad yareerkaaga haysto waxaa jecesha jacaylkaasu jacaylku waa mar dee waa kaa mar buu kusoo mara waa markaas weyn in fact mo jacaylku horta qofun ma jeclaan kartid wax kalena waad jeclaan kartaa Soomaad garan oo waxaad jeclaan kartaa dhaqan diimeed baad jeclaan kartaa Soomaad garan تاريخ وجه بدني لكن دي كل ده وضعي نقطه غير كاجينو كوتشو هاي هاي بس ويد يا بس ويد اقرتي ان اذن وري اذن نوح دوله waxaan jeclahay inaan wareyska inta ku soo gabagabayno sharaf iyo karaama ii tahay shakhsi ahaan aniga halkan inaan kula fariisto barnaamijkan arrimaha bulshada iyo TV-ga Universal beenad noogu timaadid kaaga mahad celinayna si aad waxaan ka cudur daaranaa inaanan wax badan oo jeclaan inaan ku weydiin aysan noo suurtagelin waqtigoona eryanaya awgeed laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan dib mar kale kula kulano Allah ku karaameeyo aad iyo aad baa mahadsantahay daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan aad iyo aad baa mahadsantihiin waraysigii aan la yeeranay wariyaha Rawcadaaga intaas ayaan